Hargeysa waa magaalo biyuhu ay ku yaraayeen in ka badan 15 sano ee la soo dhaafay. Haddaba waa sidee xaaladda biyo la'aaneed ee magaalada Hargeysa? Halkee ayuu marayaa mashruuca biyo ballaarinta ee caasimadda oo ay ku baxayso lacag malaayiin dollar? Yaa safulinaya mashruucaasi? Jawaabaha su'aalahani waxaad ka daawan doontaa barnaamij si toos ah uga bixi doona telefishinka Home Cable habeenimada Arbacada ee Khamiistu ay soo galayso 9:00 habeenimo saacadda Bariga Afrika. Waxaana barnaamijkaasi marti ku ah maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Ibrahim Siyaad Yunis. Mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa ee dhowrkii sano tagay hawsha soo socotay ay iska kaashadeen labada deeq bixiye ee Midowga Yurub iyo Sanduuqa Horumarinta Soomaaliland ee SDF. Mashruucaasi oo ku jihaysan ama waxyaalaha ugu kooban yahay ugu horeyso 4 ceelo cusub oo saddexna hor hadlay laga qodayo midna la soo meesha laga qodayo kaam weyn oo cusub oo laga dhisay geedeeble oo ka kooban mashiinada la dhigay meeshii baamka la dhigay iyo barkadihii biyaha dhuun weyn oo biyaha soo qaadayso geedeeble ka soo qaadaysa oo soo gaarsiinaysa ilaa Hargeysa barkada Chinese kala keenaysa inta ugu waaweyn waa intaas iyo qalab fara badan oo wixii ka shaqaysiin lahaa systemkana. Haddaba daawada wixii su'aalaha ee aad qabto waxaad nagala qayb qaadan kartaa barnaamijkaasi khadka telefoonka iyo sidoo kale barta Facebook ee telefishinka Home Cable.